السلام عليكم reer Habasweyn aad baan maanta ugu faraxsanahay safarka ay wasiirka biyaha iyo waraabka wadanka Kenya Honorable Alice Wahome noogu timid iyadoo noo sido khayraadkii ay dawladda noogu talagashay ee looga hortagayo abaarta iyo macluusha baahsan ee hayso ummadeena. abaartu in badan bay soo noqnoqotay waxaana laga yaabaa mustaqbalka laftiisa inay mar kale nagu soo laabato waxaana keenaya isbeddelka cimilada adduunka annagana waxaan nala gudboon haddaan nahay ummadda deegaankan ku dhaqan inaan isbeddel ku samayno sidaan u noolnahay si aan uga gaashaamanno waxyeellada abaaraha waa inaan hadda wixii ka dambeeya ku dadaalno in aan dhulkeenna beeranno oo cuntadeenna annaga aan soo saaranno insha allahu tacaala ilaa hadda biyola'aan baan ahayn wasiiradda imaanshaheeda iyo dawladda siday diyaar ugu tahay in wax laga qabtaa idiin muujin karaya in insha allahu tacaala aan mataqaanaa muddo dhow bilaabi doono in aan helno waro iyo ceelal loogu talagalay waraabka beeraha insha allahu tacaala wasiiradda waan u mahadnaqaynaa waxaa kaloon u mahadnaqaynaa madaxweynaha sharafta leh madaxweyne William Samoei Ruto oo gabar reer Habasweyn ah oo Wajeer South ka timid u doortay in ay noqoto xogeeye joogta wasaaradda dhaqanka ee wadanka Kenya waxaan u malaynayaa inaad ku faraxsantihiin in la magacaabay waa ku faraxsantihiin Soomaha madaxweynaha waxaan u celinaynaa Soomaha mahadnaq insha Allah ya inuu na soo eego in badan inta dawladda ka dhiman dhismaheeda in dad badan oo deegaankeena u dhashay. We have a lot of PhDs, we have a lot of people who are educated from Wajir South, and we hope there will be more appointments, but for now we will be asking our able CS to take our greetings and regards as well as our gratitude to His Excellency the President.